madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi mudane madaxweyne waxaan halkan maanta u joognaa in aan xusno guulo muhiim ah oo ku saabsan kobaca dhaqaalaha dalkeena ay u sabab yihiin bangiyadeena. Waxaan u soo joognay mudane madaxweyne iyadoo oo dalkan markii ganacsatada Soomaali burburka uu dhacay ayadoo oo badeecadaha markii la doono damco in dalkan loo safro balidoogle iyo maxaan ku raadaa number konton iyo Islay aan raahno maanta yaa baxaya qof ganacsatada u socota Dubai markaas markii la hebel baxaya markiiba la isugu tagi jiray balidoogle oo kale marka la isma warsan jirin lacagta la iskama tirin jirin boorso qofku furi jiray lacagta magacaaga ku qoran lagu leeyahay korka ka saarisay meesha ku dirday qofkaas markaas asaas inta lagu qaado oo markuu Dubai ka degana ma u tirin karin dadkii ilaa xil lagu wareejin mana ku wareejinayna boorsada inta u furo wuxuu dhigi jiray kala bax markaas qof walba kiisa kale ma aadaynin tiisa u qaadanaya xadaarada hadda la joogo lama joogino markaas alla ka cabsiguna waa badnaay qof walba tiisa u qaadanaya markaas marka meeshaasaan ka soo bilownay alxamdulillah waxaan ka bacdi xawaaladaha noo soo xigay xawaaladii shaqo badan ay noo qabteen alxamdulillah waa fiicnayn muddo ka bacdi haddana bangiyada noo unkamay waxaan maanta maraynaa alxamdulillah inaan habka aragtay aan maanta ku shaqeynayno oo kaararkeeni business kaararkii oo ATM-yada aan meel walba adduunka ku marayno abab badan ay noo soo saareen xataa canshuurihii hadda looga faa'iideystay wax badan bangiyadana ay noo qabteen oo maanta horumar masha Allah aadan ugu mahadcelinaynaa ururkeenan iyo shaqada ay qabteen iyo meesha ay hadda marayaan iyo barnaamijyadan kulankoodii labaad inkastoo 16kii la abuuray ay ururkoodu abuurmay laakiin hadda kulankii labaad hadda u socdo maanta aan kala qayb galaynaa waxa kale iyadana hubaal in ay jiraan caqabado iyo duruufo aan la iska indhatiri karin haddana waxaan aaminsanahay in dadaalada ay wadajirka ay wadaan bangiyadeena iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee mustaqbalka inay haddii iskaashadaan ay wax badan isla xalin karaan oo ay ka mid tahay arintii hadda gudoomiyuhu uu ka dhawaajinayay ganacsatadu mar walba shortcutkay maraan laakiin mararka qaar waxaan dhuminaynaa faa'iidooyinkii xawaaladuhu laftigoodu ay ku socon lahaayeen shortcutku wuxuu naga dhuminaa inaan meelaha qaarkood ka boodistooda hadday noo sheegaan aan iska kaashan karno markaas oo la isla abuuri karo waxaa iyadana muhiim oo mudane madaxweyne muhiim lacagteena shilin Soomaaliga in la helo waa danaynaynaa iyadana insha Allah haddii la yiraahdo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo koobo sharciga triple B-ga oo hadda noo fulo golaha wasiiradana maray baarlamaankana aan hadda ka sugayno inuu ka soo gudbo inaan ku shaqayn doono oo iskaashi waliba ay noqoto in ganacsatada Soomaaliyeed iyo rugta ganacsigu waxay hadda u jihaysatay inaan iska ilowno importiga waxyaalaha dibadda aan ka keenayno oo aan u jihaysano exportiga dalka waxyaalaha inaan wax dhoofino ama wax soo saarka dalka iyo warshadaynta aan labaas awood saarno waana isleeyahay haddii bangiyada iyo ganacsatada waaweyn ay iskaashadaan inaan soo celin karno warshadaheennii iyo wax soo saarka dalka annagoo waliba ka faa'iideysanayna jaaniska ku biirista bariga Afrika oo aan isleenahay market weyn oo aan ka faa'iideysan karno oo u iibgeysan karnaa halkaas nooga furmay marka waxaan leeyahay waa iskaashan doonaa infrastructure-ka dalkana waa iskaashan doonaa waxaan isleeyahay wax kasta oo dalkani oo horumarana waxay ka bilaaban doonaan bangiyadeena ayaga noogu culus oo lacagta ayaga noogu urursan yihiin inkastoo sida hadda agaasimaha guud oo ka dhawaajay aysan lacagta ayaga lahayn annagay noo hayaan ayaday noogu bilaabi doonaan ganacsataduna waa kaalmayn doontaa waxaan rajaynaynaa inaan wax waaweyn isla qabanno insha Allah haddii la yiraahdo ugu dambeyntii waxaan leeyahay ururka bangiyada Soomaaliyeed guuleysta hor socod fiican oo idin rajaynaa insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.